نبي محمد عليه الصلاة والسلام دتكي وشقيه وحكمدها ويل يرو يهودية أي النبي شغاليسي كمدها dabeetana maalintii dambe waxaa loo sheegay wiilkii inuu xanuunsanayo guriga aabihii uu jiifo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu soo baxay dabeetana gurigii wiilkuu yimi wiilka madaxiisuu fadhiistay wiilku aad buu xanuunsanayaa marka nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay inuu sii socdo aslim buu ku yidhi waryaa wiilow war islaam wuxuu ka cabsanayaa nabigu wiilkaasi intuu gaalnimo ku dhintay inuu cadaab gala de dabeetana wuxuu ku leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam war islaam wiilkii markaa aabbihii buu eegay aabbihii baa wuxuu ku yidhi atic abalqaasim maqal wuxuu nabi maxamed kuu sheegayo yuhuudda iyo dadkii wakhtigaa noolaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu nebiya cid waliba waa garanaysa laakiin dana iyo masaalix kale iyo wax kaloo ilaashanayaan bay u diidanaayeen nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa inuu nebi yahay dee mucjizaadkiisii baa muuqday dhaqankiisii baa muuqday akhlaaqdiisii baa muuqday waxyiga ku soo degayaa muuqday cid waliba waa garanayso aragtaa inuu nebi yahay idan nabi maxamed inuu xaqiya uu garanayay odagan yuhuudiga markaa inankiisii wuxuu ku yidhi yaraa atic abalqaasim waxa uu kuu sheegaya aqbal dabeetana wiilkii yaraa baa ashahaatay islaamay nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku farxay markaa islaamnimada wiilkan yara wuxuu leeyahay alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar waxaa mahadle waan mahadinaya waxaan ammaanaya ilaahay kaa yar naarta ka badbaadiyey wiilkaa u shaqaalaa buu nabigu wuxuu kala cabsi qabay inuu naarta galo qisa labaad baan iyana idin tilmaamaya si kooban reer banu israa'iil halkay ka soo bilaabmeen haddaynu ku noqonno qoys yar oo nebi uu dhalay nebiyullaahi yacquub nebi israa'iil oo meel degan bay ahaayeen reer falastiina kadibna wiilashii uu nebi yacquub dhalay waxay colaadsadeen wiil yaroo ka mida ilaahi subxaanahu wa tacaala qisuu inooga warramayaa ah in nebi yuusuf alla doonay inuu madax ka dhigo laakiin si madax looga dhigo dariiq dheer baa ilaahay soo mariyey nebi yuusuf hadduu gurigooda iska joogi lahaa inaanu madax noqdeen bay u wadantay laakiin ilaahay jid buu soo mariyey dheer jidkaa markuu ka soo tallaabayna masar buu madaxdii ka noqday oo jidkaasi muxuu ahaa in isagoo yar god lagu rido godkaas waxay culammadu yidhaahdaan qisada yuusuf waxay tilmaamaysaa mixnadaha aad maraysa iyo fitanku lacallaha inay manxa yihiin ilaahay ku siinayo adiga suuraddaad u arkaysa waxa laga yaabaa suurad dhibeed inay tahay laakiin waxa la arkaaba inay fursaddii kuu tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kula rabay kugu gaadhsiinayo nebi yuusuf dariiqii mulki si loo gaadhsiiyo walaaladii baa lagu itixaamay oo god ku riday godkiina qolo safaraa kala baxday oo addoonsatay addoonnimay u iibiyeen addoonnimo markii loo iibiyeyna gurigii boqortooyada iyo wasiirada meeshaasaa la geeyey casiizu misr haddana waa la itixaamayoo inuu gurigaa addoon qura ka noqdo looguma talagelin waayo addoonnimadaa ma dhaafeen waxaa imtixaan kale ku noqotay gabadhii guriga joogtay imtixaankii kale wuxuu sababay inuu xabsi galo xabsigii wuxuu sababay isna kuwa riyooday inuu riyadood fasiray boqorkiina inuu riyoodo oo cid u fasirta la waayo inuu sababtaa kaga soo baxo boqorka riyadiisii inuu fasiro riyadii boqorka uu fasirayna inuu ku noqdo maxay maamulka sare nin loo dhiibo idan qisada tani waxay tilmaamaysaa walaaladu tadbiir bay sameeyeen nimankii la walaala ahaa yuusuf aan dilla iyo aan fogayna isku qabteen aan fogaynadii bay qaateen godkaasay ku rideen waa la arkaa in meelaha la addoonsado la qaadeen imra'atulcasiis
qadiyad kale ay dabarteeyana wiilkaa yar inay hanato markay weydana waxay isku dayday inay kufsato markuu kufsigii u suurtogeli waayana waxay isku dayday inay xidho waa xidhay tadbiirkeedii kaasuu ahaa sijnigaasuu soo maray boqorku waxbuu dabaraysana laakiin waxoo dhan marka la isku daro ilaahay baa wuxuu ina leeyahy wallaahu gaalibun calaa amrihi walaakina akthara annaasi laa yaclamuun waxaa bini aadamku tadbiiriyey oo dhan ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala ilaahay arrinkiisa waa kii ku xoog badan dadkase inta badani ma oga baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala iyagu tadbiiraad bashariya bay wadeen laakiin ilaahay min waraa'ihim asbaabtan wax kaluu uga dan lahaa iyo nebi muuse in liyumakkina in ilaahay makansiiyo oo uu noqdo ka dhulka ka talinaya inuu noqdo wallaahu gaalibun calaa amri walaakina akthara annaasi laa yaclamuun cumar bin alkhataab wakhtigii amiiru lmu'miniinka ahaa ayuu ciidamada taakulada ee yaman ka yimaada wuxuu odhan jiray war maydinku jiraa nin uweys la yidhaahdo uweys ilqarani markaasay waxay yidhaahdeen uweysku waa keeyo uweys ibnu caamir nin la yidhaahda buu yidhi haa bay yidhaahdeen nin qabiilkiisu muraad yahay mayay buu yidhi markaasay yidhahdeen haa qaran ninka si ama yahay markaasay yidhaahdeen haa war ninka aan doonayaa buu ku yidhi nin inta baras ku dhacday barasku waa xanuunkan dadka wada caddeeya inta baras ku dhacday ka bogsaday oo meel dirham in leeg suul in leegi uu ku hadhay mayi waxay yidhaahdeen haa war nin hooye qura leh oo hooyadii aad ugu samafala ma yahay buu yidhi war ninkaad sheegaysaa baa la yidhi cumar wuu nala socdaa igu yeedha buu yidhi waa loo yeedhay wuxuu yidhi waxaan maqlay ilaahay rasuulkiisii oo leh taakulaynta ciidana ka iman doonta yaman ninka la socdee la yidhaahdo uweys ibnu caamir ee qabiilkaa iyo qabiilkaa ka tirsan ee baraska qabay ee ka bogsaday mowdicu dirham mooyaane ee hooyadii u samafala low aqsama cala allaahi la abara waa nebi maxamed baa sii sheegaya calayhi salaatu wasalaam uweys nebi maxamed ma soo gaadhin waa taabici maaha saxaabi ninkaas nebigaa noo sheegay buu leeyahay oo yidhi ninkaasi hadduu ilaahay ku dhaarto ilaahay wuu u fulinayaa dhaartiisa ee cumarow haddaad ninkaa aragto ilaahay dembi dhaaf ii weydi ku dhow ku yidhi waa cumar bin alkhataab ayaa waxaa lagu leeyahay haddaad ninkaa aragto waxaad tidhaahdaa war bal ilaahay dembi dhaaf ii weydi xadiidkii intuu sheegay ayuu cumar uweys wuxuu ku yidhi fastakfir lii ilaahay dembi dhaaf ii weydi uweys alqarani ilaahay buu dembi dhaaf weydiiyey dabeetana cumar wuxuu ku yidhi xaggaad u socotaa wuxuu ku yidhi kuufuu maraya dee halkaasuu ciraaq ka gelaya ka dagaalgelaya kuufaan u socdaa buu yidhi cumar wuxuu ku yidhi kuufa waaliga jooga yacni amiirka kuufa jooga aan waraaq kuugu qoro cumar wuxuu ku yidhi markaa war dadka khabraa innaas dadkaa caamkaa inaan ku dhex jiraa baan jecelaye waraaqdaada iska haysa buu yidhi cumar wuxuu rabaa in la yaro maamuuso dee barasaabkii govarnarkii halkaa joogay in lagu ballamiyo isna wuxuu leeyahay dadkaan ka mid noqonaya ee cumarow raalli ahow sidii buu iskaga tegey xajkii dambe ayaa niman yaman ka soo xajeen xajkii markii la yimi ayuu cumar sidii oo kale nimankii reer yamaneed buu weydiiyey war nin caynkaasi banooliye nin ka mida raggii yaman ninkii baa yidhi haa sifaadkii buu sheegay ninka caynkaas haa bal ninkaa iiga warra buu yidhi ma uweys dee uweys anigu waxaan ka imi buu yidhi taraktuhu ratha albeyti qaliila almataac guri yaro buul yar isagoo ku jira waxna aan haysan baan anu ka imi buu yidhi ninkanaad sheegayso dee waa nin muwaatin oo waddankaygii magaaladeedii jooga laakiin nin wax haystay ama dadka muuqda ku jira ma ahayn ee nin ratha albayta buu ahaa buu leeyahy gurigiisuna uu tawaadic iska yahay mataacu haystaana uu aad u yaryahay xadiidkii buu sheego wuxuu yidhi waryaa ninka aad sheegaysa nebi maxamed saasuu ka yidhi haddaad aragto
إلهي دم دافي ويدي كله ونقضي نكي دبتنا هو يسبوت لو حدوريا هو يسوي إلهي دم دافي ويدي هو يسوي حقولي ورضا عمل صالح هذا كي وحج كي يميه أتقول إلهي دم دافي ويدي نكي وكوع عليه ورضو إلهي دم دافي ويدي ولي ويسنو حلي هاي ورضا عمل صالح كي وحج كي يميه أتقول إلهي دم دافي ويدي مركي دم كوي دوريا ويسباله مع عمر بعد لك ولا أنت عمر بن الخطاب ميا دركت مركز سكويري ها عمر بانارك دبتنا ودعي مراسي يقولي كسوة حل الله حلو برد موسي dadkii markay ku arkeen maryahan yara fiican quruxda badan leh uu sito ayaa magaalada waxay isweydiinaysaa waa ninkii weysaa maanta uu xaragoonayaa من أين لويس هذه البردة باب الإسويدينية بردة لويس ما تحقق كسوها هي أساسية يعني وأنا كان مرة ولي الله قوله إنه مرة يرحنه تقول لي ما تحقق كذا كدي بماشي بس كي تقول قلت حديث كم حتى المامية حديث كحنات المامية إلهي أكتيسة قفكو إنه كم موضة هي بشر كإنه كم موضة وكلا لبا ninka kani waa ninka la leeyahay haduu ilaahay ku dhaarto ilaahay wuxuu ku dhaartay wuu rumaynaya nabiyullaahi maxamed baale calayhi salaatu wasalaam ma aha qof ay dadku leeyihiin waa weliya waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam asaa ku tilmaamaya nabigu calayhi salaatu wasalaam sulxu xudaybiya heshiiskiioo la qorayo oo la rabo in la qoro oo suhayl ibnu camar saxaabiga la odhan jiro markaa gaala iyo nabi maxamed wada qoranayaan heshiiskii ayaa waxaa yimi abu jandal suhaylnimuu dhalay gaalkan markaa wax qoraya miduu dhalay oo muslima oo maka lagu xidhay oo silsiladihii iyo wixii soo goostay oo torturkii iyo tacdiibkii uu ka muuqdo ordaya soo galay suhayl ibn camar wuxuu yidhi heshiiskii waynu gallay weli maynan qorin maya waa gallay buu yidhi saa awgeed kaasaa ugu horreeya waxaan ku heshiino heshiiska waxaa ka mid ahaa hadday quraysh mid muslimi ka soo baxsaday in loo celiyo hadda waa muslim quraysh ka soo baxsaday in dib loogu celiyo ayaa heshiiska ku jiray 10 qodob ayuu ka mid ahaa deetana wuxuu yidhi waxaan heshiis kugula galo kan baa ugu horreeya kaa haddaad fulisana heshiiskeena wuu jiraya haddii kalena ma jirayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi anjisni kan ii ogolow ii fuli halkay reer xamarku iga qallee odhan jireen kan wax kasta uunay sii daabuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waa diiday suhayl ibn camar kaa sii dayn maayo buu yidhi kan baa ugu horreeya heshiis waxaynu ku gallo dabeetana nabigu wuxuu ku yidhi isbir waxtasib waar sabiro ilaahay dartii xisaabsan waxaa kugu dhacayo iska noqo baa la yidhi waa qayliye magaaladaa laygu celinayaa buu leeyahay anigoo madiintayda in layga fidneeyaa baan rabtaa waa maalintii cumar hadalladu ka dhaceen waxaan uga dan leenahay lama odhanin maslaxada muslimiintu xaggay ku jirtaa iyo ninkan muslimka ee miskiinka ah la soo daayo waxaa la yidhi heshiis baa la galay ha noqdo mid ka sii adagaan tilmaamno abu basiir saxaabiga kaloo la odhan jiray ayaa isna soo baxsaday madiine markii la yimiba weyse soo taagay isagoo baxsiya isna quraysh ka soo cararay quraysh laba nin bay ka soo daba direen hal la soo celiyo bay yidhaahdeen isna ballankeenni baa sida ahaa labadii nin baa yimi dabeetana waxay yidhahdeen ballankeennu wuxuu ahaa in la soo celiyo ninkana wuu soo baxsaday celi nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam abubasiir buu u yeedhay waxaa la yidhi abubasiirow noqo magaaladaa laygu celinayaa buu yidhi waad ogtahay buu yidhi inaynu heshiis gallay heshiiskana kama baxno noqo abubasiir waa aqbalay mar haddii nabi maxamed leeyahay noqo labadii nin buu soo raacay dalxulayfa meelaha markii la marayay ayaa iyagoo timir cunaya waxunbuu mid seefta ka qaado mid buu madaxa ka jaray kii kale oo ordaya ayuu soo geliyey madiina nabigu markuu arkay buu yidhi kani balaayo arag anu baqayaa dabeetana abubasiiroo daba xiimaya soo galay nabigu wuxuu ku tilmaamay miscaru xarb inuu yahay المسعر روح على إذا قريقا طبق لغو ولا قيل لغو الشتو
كان يعني وضب وراق يا أبو نبي قتل مامي إن مركا وحو فهمي أبو بصير إن هدنا اللي علين دونه دي مركا الله يمادين اللي علين دونه مدينة أبو وسكا بحي حيبتو تجي halkaa xeebtu iska degay abu jandalkii baa soo baxsaday isna xeebta yimi rag kale oo maxaabiis ahaba ka soo daba baxsaday kontoneeyay isku soo gaadheen ilaa dhowr boqol bay gaadheen baa lagu tilmaamaa dabeetana quraysh bay u galeenba halkaasi safaradoodii iyo wixii oo dhan markii dambe quraysh baa dalbatay nabiga ka bariday qodobka buri waa cafinina qodobka nimanka soo xarayso ugu soo noqdaan nimankan mar haday nabiga ka tageen isagoo kama mas'uula waxay geystaan waa ka baxeen magaaladii uu nabigu xukumayay meel aanu nabigu xukumin bay iska tageen halkoodaas ay gaala isku hayaan dabeetana waxay dalbadeen in la soo celiyo labada qisaba waxay tilmaamayaan heshiiska la gala sidii uu adagay saasi daraadeed baa ilaahay quraan ku tilmaamaya وإن استنصروا هدايدين كلمة ويديستان قلا هشيس لقشين تاسكم تشرتبا ليلي قصص دي هذا أنت المامنو أو قصاب سيسن إن دقال كي بدر حذيفة بن اليمان يا أبيه كما يقيب قلين وحليه سببتي وغا قيب قلي وايبو تلمامية يغو صعدو سو هجرودي أيا عيدمدي قريشة دي دقال كو صفنابا ميل دي حقو قبطي حقا كو سعطان بيدهن وحيدهن مدينة بلا النوقا دا بيدهن إنا مدينة كو سعطان وإذا النبي محمد لدقال قلين صور راعين عيدا كيسا عليه الصلاة والسلام بلا كيبا يقاضين ديتنا ولا سيداي بس كصعده نبي جيبوا يمادنا عليه الصلاة والسلام صحابتي نبغوا عيدا ما هيستو أو بقولوا نبوته تقالكم متلقلين هل كان كنن أيام مريا إسلام مركا يجو ما هو بيسنا صحابة تاني وده جد قوي يربكوا تلقلين قولوا ده ند تقال بكوا صوت تلقى شيء وهو كودي يردم ووته وما أنتم نبي محمد الله بري ولا هاي له أنت هدي ما أنت هلكته دريد دي بلغوا عابد مايو صحابة يريد بتلمامية إله أنت سمعت هذا يقدم هلاك سنتو يعني الدين تو يدبركوا يسابو تلمامية سيدا صرق وقباهنا هذا نمركي ويمي حذيفة بن اليمان به وركي أيو شيء وحكي النبي عليه الصلاة والسلام انصرف سكتغا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم صحيح مسلم بحديث كيالا لبدا قصه هرنا بخاري كيالي وحديث صحيح على كل حال اسك الصعد ابو نبي بلنكودان او اوفينيا الهينا وانو تلا سارنيا بلنكو بلن درقيا بو اهايو لغو اكراهي مع ذلك نبي وحو ربي بلن مسلم قالي انو سيدي سوفلو بلن وقف مسلم قالي انو سيدي سوفلو انان مرنبا مسلمين تلغو علامدين هشيس أي قالين إني كبحين أما هشيس أي قالين إني برينيان إن أنا مرنا بلغوا علامة هذا ما ننسى حديث يا أبي الرافع يا أبو داود كورينا هي صحيحة يا نسائي بابا الرجيني نكويالو شيخ الألباني صحيح بكت المامية قريش ما صادر طيب وراق صودي بتو ويمي انت هشيسكي وقلقلدين أي صادر فرينا أي رباننا الشاقان إن أنا هشيس كبحينا وحقل ضمينا إن لعفيو dabeetana markii waraaqdii keenay ayuu Abi Raafic wuxuu yiri naftayda markii hore muslimaan hayn laakiin imka waan islaamay nimankii ku noqon maayo nabigu wuxuu yiri ballankoodan fulinaya noqo hadda islaamnimadu ka dhab tahay markaad xagga tagto intaad salaamto hadhow hijrood hadda doonayso laakiin anigu ballankii baan fulinaya inni la akhisu bil ahdi binabu ahdi ballanka ma buriyo ee ballanka sidiisu ahaanaya waxaanu leenahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ballan galay wuu fuliyay bale saxaabadu waxay isku dayeen ballan qaadiyadu nabigu galay markuu nabi maxamed dhintay calayhi salaatu wasalaam kadib inay oofiyaan oo nabi maxamed ballan u galay inaanu marnaba burin oo waa maxay jaabir ibn abdullah baa wuxuu yiri
نبي وحي يجري لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا أبو نبي هدي حوله بحريني مادان جابرو وانكو سينا يا سدا يا سدا يا سدا أبو يجري صدح جرب النبي وقعدت الماء يقولي إن هو حسينا يو دبتنا حوله بحرين وأنا ما نبو نبي وغيري يودي مركي حوله بحرين وقت هو أميرك ها أبو بكر أي حوله يمادين أبي بكر بايستاقوا حوله من كان له عند رسول الله عدة أو دين فليأتنا وركي النبي محمد وبلا نقاضي أما الدين كلها يونوك علي بليه أبي بكر روح الرباين وفليوه هديبه ونبي محمد بلا نعيده نقاضي عليه الصلاة والسلام ويلوه حبان خصين دونا إنني مرنا ببينه بين نبي قو قيريودي مركب حولي إنكي بلا نبي محمد وقاضي أمسه دين كلها يونوك علي جابر بن عبد الله بويمه ووحيري نبي وحي يقول هدي حولها سكوي مادان سدا يا ساسا كو waxan toobin doona kaalay buu ku yiri dabeetana Abi Bakar xoolii buu xan toobiyay kasuu dhiibay tiri baa la yiri wala tiriyay markaas la yiri waa 500 bay noqotay markaasuu yiri laba goor oo kale 500 na ka qaada hadaba hadii lagu yiri sida iyo saddex goor baa lagu xan toobinaya hadii lagu yiri xan toobada tirso wixii ay ku noqoto saddex laabkeed qaado saxaabadu markaa waxay ahayn dad fuliya waxay ballan galaan nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay almuslimuuna calaa shuruutihim muslimiintu waa wixii ballan ay galaan tusaale haddii qof shaqaalaha kontraag uu saxeexo waa inuu qofka shaqaaliina fuliyaa ninka loo saxeexayna waa inuu fuliyaa dowladdu hadday ballan gasho waa inay fulisaa waxay dastuurka iyo qawaaniinta ku qorteen ee aan khilaafaynin sharciga islaamiga waa in la fuliyaa madaxweynaha la dhaariyay wasiirka la dhaariyay dadkan la wada dhaariyay waa ballan dhaar lagu daray waa ballan waa mawaafiq bay noqdeen waa ahdi dhaarna lagu sii daray waliba waa in la fuliyaa haddii la fulin waayo kuwii bay noqonayaan uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam idan qofka muslimka ah ha ka digtoonaado ballamada uu galayo mid dowladeed ha noqoto mid shicib ha noqoto mid dhaqaale ha noqoto mid ballanqaad ha noqoto mid qabaa'il ha noqoto qabaa'ilkan mar walba inta heshiiska galaan burinaya noocan nifaaqa bay ku dhacayaan nabigu tilmaamayo noocan cadhada ilaahay ku dhacaysa fa bima naqdihim miithaaqahum la'annaahum ba ilaahay ballankooday buriyeen daraaddeed baa lacnad ugu dhacday qalbi engagu ugu dhacay idan sultaan ahaw ama caaqil ahaw waxaad ballan saxeexday waa inaad fulisaa madaxweyne ahaw wasiir ahaw wixii aad ku dhaaratay waa ballan waa inaad fulisaa qof muslim oo caadi ahaw wixii aad ballan gashay waa inaad fulisaa dadka muslimiinta waa inay bartaan heshiisku iyo ballanku inuu diinta islaamiga wax weyn ku yahay xataa haddaad gaal la gasho u fiirso riwaayadka ama axaadiistaan akhrinaya waa ballamo gaal lala gala bay ahaayeen haddii muslim loola galo maxaad u malaynaysaa markaa haddaynu ka warrannay ballamadu gaalada la galay siduu nebi maxamed u fuliyey calayhi salaatu wasalaam oo weliba la fulinayay iyadoo dadkaasi dad dhibi haysate ay yihiin muslim dhibi haysato lagu fulinayay ballamaday dadka muslimiinta caadi galaan muxuu yahay waxaad moodaa inay dhaqan iska noqotay qofka siyaasiga inuu buriyo inay dhaqan iska noqotay qabaa'ilku inay buriyaan inay dhaqan iska noqotay shirkadaha baacimishtarku inay buriyaan inay dhaqan iska noqotay dadka caadiga inay buriyaan xataa inay noqoto qofka raba inuu ku yidhaahdo ballan dhabaan kula galaya war hadda ballankaygu kii soomaalida maaha inuu ku yidhaahdo goormaynu isu nimaadnaa waqtiga ballan soomaali hadda maaha kaanama ballan soomaaligu been soconaysa yahay halkuu qof muslima ballankii ka ahaan lahaa waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaahdo ballankii gaaladu ninkaasi leeyahay war ma gaal baa ballan loo muslim baa ballan laga waayey waa diin la'aande haddii la yidhahdo gaalkaa ballan leh oo muslimkaa ballan laga waayey waa diin la'aan
sidaa awgeed wakhtigii salaadka waa gaadhay waxaynu ku koobaynaa nusuusta qur'aanka ah ee ballanka ka warramaysa ama ka ilaahay lala gala ha noqdo ama ka bini aadamka lala gala ha noqdee aad bay u adkaynaysaa dadka fuliya aad bay u ammaanaysaa ambiyo iyo saalixiin iyo awliyada ilaahay baa lagu tilmaamaya aakhirana jannada firdowsi laclaa iyo jannada kuwa mukramka oo lagu karaameeyey baa lagu tilmaamaya dadka buriya ee ballamada buriya aakhirana nebi maxamed wuxuu yidhi iyadoo calan dabada ay ku wataan liwaaul qadri la yidhaha carabta dhaqankooda waxaa ahaan jiray markay sanadkii mar isugu yimaadaan suuqyadoodii weynaayo cukaad iyo meelaha calamaa la taagi jiray calan cad dadka ballanka ka baxa baa la taagi jiray waxaa la odhan jiray reer hebel ballankay qaadeen oo dhan way fuliyeen calan cad baa la taagi jiray calan madowna waxaa loo taagi jiray reeraha inta ballanka ka baxda calan madow bay taagi jireen sida imaamu qurtubi uu soo naqlinayo maadaama calan cad iyo calan madow la taagi jiray aakhiro toodii baa ilaahay ugu tilmaamo waxaa la yidhi aakhiro kuwa qadriga sameeya waxay imanayaan iyagoo dabada calan looga taagay dabada adigoo calan ku wata ayaad aakhiro imanaysa oo la yidhaha liwaaul qadr calankii kuwa buriya heshiisyada ilaahay waxaan ka rajaynayaa subxaana wa tacaala inaynu dad muslima uu inaga yeelo oo ballanka sidiisa u fuliya heshiiska sidiisa u fuliya heshiis kasta uu galay gal iyo muslim ciddaa doonta la gale inaad heshiiska sidiisa loo fuliyo nin baa nabiga soo maray calayhi salaatu wasalaam dhallinyaro ah oo xooggan oo jidhkiisu dhisan yahay oo firfircoon iyo ka muuqato saxaabadii meesha fadhida waxay dhahay yaa rasuul allahi low kaana haada fii sabiili illah waxaa soo muruqaya digdigi hadday ahaan lahayd wax jihaad lagu gelayo ayaa fiicnaan lahayd bay saxaabadan isweydiinayaan nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam markaa in kaana kharaja yascaa calaa waladihi sigaaran fahuwa fii sabiili illah war hadduu soo baxay carruur yaryaroo uu xoojinayo oo wax siinayo kaasiba waa fii sabiili illaahi buu nabigu ku yidhi wain kaana yascaa calaa abawayn shaykhayni kabiirayn laba waalid oo gaboobay hadduu u soo xoojinayana fahuwa fii sabiili illaahi buu nabigu yidhi hadduu u soo baxay isaga oo naftiisa cifa u raadinaya iyo inaan cidda baryana xoogsadoo dhowrsanaadana fahuwa fii sabiili illah hadduuse u soo baxay buu nabigu yidhi riyaa'an wa mufaakhara istus iyo faanfaan hadduu u soo baxay dhallinyaradu dee inta badan markuu isku hubiyo inuu sigisbaaga yeeshay shaadh weyn oo khamiiskayga oo kalaa ma xidho oo xidhaa garan yaroo dee ku dhegsan oo muujinaya inuu muruqyadiisa laga arki karay nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam hadduu u soo baxo riyaa'an wa mufaakhara ismuujin iyo faanfaan hadduu u soo baxay fahuwa fii sabiili shaytaan buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu axmed iyo ibn xibbaan ba warinayaan xasana lagu tilmaamay cabdillaahi ibni mascuud saa u taqaanayn mooyaane waa jabalun fi lcilmi walcibaada saxaabadii fuqahaa saxaaba laakiin markay jidhka timaado nin nisyar oo mija dhuudhuuban oo aad u nisyar buu ahaa dabeetana geed buu isyidhi caday ka soo goo markuu geedkii koray ayay dabayshii ka fayday maradii dhundhumadiisii baa muuqday markaasay saxaabadii qosleen dabeetana nabigu wuxuu yidhi mima tadxakuun maxaa ku qoslaysaan qaaluu min diqati saaqayhi bay yidhaahdeen dhundhuma fiiqnidiisaanu ku qosolnay cabdillaahi siduu u mija yaryar yahay ayaanu ku qosallay bay yidhaahdeen nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد إله نفتيدو قعنتي سكوشرتان قدارتين ردن كايرا أركيسان بورتا أحد كعلص قيامة ميزانك بورتا أحد ردن كايرا عبد الله بن مسعود كعلص بن نبي المامي عليه الصلاة والسلام سداوغين
ayaa nabigu meel fadhiya calayhi salaatu wasalaam ayaa nin baa soo maray markaasuu yidhi war ninkaa ka warramo maa taquuluuna fi haada kan maxaa odhanaysaa buu ku yidhi waa idhaa ma ninkani bay yidhaahdeen dee waa dadka magac iyo maamuus kalay tilmaamaan waxay yidhahdeen xariyun in khataba an yunkax waa nin hadduu gabadh ku weydiisto gabadh la siiyaa bay yidhaahdeen hadduu erge kuugu yimaadana ergadiisa la aqbalaa hadduu hadlana warkiisa la dhegaystaa bay yidhaahdeen ninka muuqaalkiisii bay qiimeeyeen deetana waxay leeyiin ninkani waa nin hadduu gabadh kaa soo doonana la siiyo haddii uu hadlana nin warkiisa la dhegaysto hadduu erge iyo shafaaco kuugu yimaadana shafaacadiisa la aqbalo uu iska aamusay nebigu calayhi salaatu wasalaam mar kalea nin kale soo maray markaasuu yidhi maada taquuluuna fi hada maa taquuluuna fi hada kanna maxaydan odhan waxay dhahay makani deekana waxay dhahay waa waaxid min fuqaraa'i almuslimiino nin hadduu gabadh ku weydiisana wax la siinaya maaha nin ergadiisa la aqbalayana maaha nin warkiisa cidi dhegaysanaysana maaha waa min fuqaraa'i almuslimiin bay ku tilmaamay bal miisaanka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu saaray ka eeg wuxuu yidhi mid kan dambe iyagoo aan agtooda qiima ku lahayn midh ah iyo mil'ul ardi dhulka muggiyo kii hore ah waxaad qiyaastaan dhulka muggiyo bini aadama xabadaasaa ka khayr badan buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam dhulka muggiyo kaasa iyo xabadan qura ee aan idinka agtiinna qiimo badan ku lahayn kaasaa ka qiimo badan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dhulka muggii oo bashara laakiin noocii ah nooca lahaydeen hadduu khudbadeeyana waa la dhegaysanayaa hadduu erge kuugu yimaadana waa laga aqbalaya hadduu gabadh ku weydiisana waa la siinayaa haadaa khayrun min mil'i alardi mithli haada buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska bukhaari ku yaallaa saxaabigii xandala la odhan jiray alusaydiy ayaa maalin abibakar soo booqday saxaabigana wuxuu ka mid ah min kitaabi ilwaxyi nimanka marka nebigu waxyigu ku soo dego qora dabeetana markii abibakar baa yidhi kayfa ant war bal waran wuxuu ku jawaabay naafaqa xandala waa munaafiqoobay buu yidhi abibakarow bisa maa qult waar maxaad ku hadlaysaa buu yidhi dabeetana sababtii buu sheegay sababtuu ka dhigayo munaafiqnimada ayuu xandala sharxay waa maxay wuxuu yidhi markaanu nebiga la joognana waxaad mooddaa jannadii iyo naartii inaanu arkayno iimaankooda dee wuu xooggan yahay ilaa nebi maxamed baa wax u sheegaye markaa inaanu jannadii arkayna baad mooddaa buu leeyahy iyo naartiiba laakiin markaanu guriga nimaadna buu yidhi xoolaha iyo carruurta iyo dumarka iyo reerka iyo alaaba markaanu waxaa ku yara mashquullana wixii waa naga kala lumaan buu tilmaamaya sidii hore ma niin saxaabigana markaa muxuu raadinayaa markuu nebi maxamed hor fadhiya calayhi salaatu wasalaam iyo markuu suuqa joogo ama guriga joogo ama beerta ka shaqeyn isku mid ahaadaa buu raadinaya wixii aan waxaa ahayn agtiisa waxay ka tahay nooc min annifaaq inay tahay inuu marna sidan yahay marna sidan yahay dabeetana abibakar baa wuxuu yidhi de sidaadanaba waa dareemaynaaye balinawadii nebigaa loo yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam baa qisadii looga dhaadhacay nebigu wuxuu ku yidhi waladii nafsii biyadih ilaah naftaydu gacantiisa ku jirtaa ku dhaartee haddaa ku sugnaan lahaydeen sida aad tihiin markaa aniga ila joogtaan noloshii noo dhame hadday sidaa noqon lahayd malaa'igtaaba waddooyinka idinku salaami lahayd buu nebigu leeyahy waa bini aadamnimo ka bixi lahaydeen malaa'igtaa waddooyinka idinku salaami lahayd xandalow buu nebigu ku yidhi saaca wa saaca ساعة وساعة ساعة في الحرام وفي اللهو وساعة في العبادة مية وساعة وحي حلاشة كوة هات سميسو reerkaagii la dhaqantid xoolahaagii shaqaysatid saaca wax xalaal kuwa ilaahay kuu baneeya aad samayso iyo saacadaad ilaahay u gaar yeesho adduunka aad ka baxdid innagu saacadahan waynu wada naqaanaa xaggan laakiin tanbaa yar tanbaa aada u yar idantaynu rabnay inaynu kabcinaa waa maxay anigu tan ka hadli maayo adduunka in la xoogsada iyo waqtiga iyo shaqada iyo kaa wada xarfaan baa ku tihin jaamacada laydinku dhiga laakiin kaa ka hadlaya waxa weeyaan tan kale ayaa daciiftay tusaalaheediina yaraaday nabi muuse qisadiisu aad bay u cajab badantay
ilmo yar oo dhashay oo boqor dhan oo waddan haystaa raadinaya wuxuu arkaba inuu dilo oo hooyadii xal u weyday aan ahayn inay badda ku riddo oo ilaahay baddaasi ka badbaadiyey aayaadka qisadan ka warramaya maalan fi suurati alqasas ku jira ilaahay muxuu leeyahy wanuriidu an namunna cala aladiina istudcifuu wanajcal waxaan rabnay baa ilaahay yidhi inaannu ku mannaysanno ku galladaysanno siinno kuwii la dullaystay la gumaystay inaannu madax ka dhigna baa ilaahay yidhi waxaan kaloo rabay baa ilaahay leeyahy kuwii madaxda ahaa iyo kibirsanaa waxay ka baqayeen indhahoodoo shana inaan tuso wanuriya fircawna wa haamaana fircoon iyo haamaan iyo kooxdooduna waxay ka cabsanayeen inaan tuso baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala laakiin waxaa laga yaabaa innagu waynu degdegaynaaye time framekaasi intuu qaata muusaa dhashay bad baa lagu riday waa fircoon iyo reerkiisi baa ka soo saaray waa la koriyey cid buu dilay waa baxsaday reeruu cidla'a buu u tegey meel buu ku busaaradsaday uu leeyahay ilaah waxaad siisay waan ka faramadhnahay kadib baa hablo adhi waraabsan karile uu yimi adhigiibuu u waraabiyey aabbahood baa yidhi u yeedha habli u sheegeen gabadh baa la siiyey xoolaa la siiyey halkiibuu 10 sano joogay isagoo nin weynuu soo noqday dhexda markuu soo socdaa waxyigii ku soo degay rasuul baa laga soo dhigay fircoonkii sidii u kibirsanaa buu u yimi qisadaasi waa qiso dheer aynu wada garanayno laakiin ilaahay wuxuu inoo sheegay marka hore inna fircawna calaa fi lard fircoon dhulka waa ku kibray baa ilaahay yidhi anna waxaan doonay kuwaa la addoonsaday inaan madax ka dhiga baa ilaahay yidhi kuwaa wax addoonsadayna inaan waxay ka baqayeen aan tusiyo qisadaa dheer markii ilaahay inoo tilmaamay qisada meel ka midoo quraynu hadda tilmaamayna nabi muuse waxaa lagu yidhi ka saar tolkaa magaalada oo guuraysii habeennimuu guuraysiiyey dabeetana meel bada buu soo gaadhay fircoon iyo ciidamadiisiyo isa soo urursadayna way ka daba yimaadeen ilaahay suuruu ina siinaya markaa iyadoo xaggaana badi joogto xagganna ciidamadii ninkii laga soo cararay uu soo socdaan iyana labadaa dhexdooda ay ku jiraan dadkii fircoon la socday qaybo ka midi markay arkeen waxay ka fakereen asbaabtii maadiga ahayd falamaa taraa aljamcaani qaala asxaabu muusa innaa lamudrakuun asbaabtii maadiga ee bini aadamku ku xisaabtami jiray ayay ka fakereen markii ay arkeen xagganna inay bad tahay xagganna ciidamo tahay ay waxay nebi muuse ku yidhaahdeen innaa lamudrakuun layna qabay waa layna haleelay bay yidhahdeen layna soo gaadh waayo xagganna waa bad xagganna waa ciidamo nebi muusena labadooda nadruun u kala fiirso iyagoo asbaabta maadigaa bay arkaan nebi muusena musabbibul asbaabka uu muuqda ilaaha sababta isagu sababahan dhigay qaanuunka fiisigiska inagu ina xadeeyaa laakiin dee rabbigii dhigay ma xadeeyo marka nebi muuse wuxuu eegay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu jawaabay kallaa ina maciya rabbi sayahdiin may nalama qaban naylama soo gaadhin aniga rabbigay baa ila jira buu yidhi waanuu ii jid bixin doonaa ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa ii jid bixin doonaa aayaadka qur'aana faawxaynaa ilaa muusa nadrib bicasaak alfaau liltacqiibi watartiib surcay tilmaamaysaa baa la yidhahdaa كأنما نبي موسى وحل لو وحيو ذي سلا مركيبا وشادا كله فبضة إلهي وحو الرباين وإن تصير أسبابته إن أنا هين وح سماية إلهي سبحانه وتعالى إنك حرين تبقى إلهي ضد ضانا إن إلهي وحبا قبين إن القبين أصليا إلهي وحو دجي يدبكو إنه وحقبه وقانون كلا إن يدي إنك كل رقمه inagu inta dab isku tuuroodhan mayno gubi maayo waa gubaya ilaahay baa saa u dhigay laakiin wuxuu inoo sheegay isagoo hadduu doono inuu ka joojinayo inuu wax gubo nebi ibraahim qisadiisi baa ilaahay inooga warramay halkan waa bad
فيزيكس قال لي نور دقيقة ما إلى هي قانون كودوني ده ودتشي إلى فيزيكس هو قانون كألا ماشي ودتشي قانون كألا ودتشي أولمبيا ما كانت شاحده بدمية أول كارد العسى ولدي أسباب تأكتي واحد وانا لسوق قاري نبي موسى مسبب الأسباب كو واحد أنا قال لي ما قبني إلى هنا أمر بوسي أشا كله فبضه قف وادو إلهي الرميسين هي إلهي وامرتي سوفلني واحد دون تبعات ولو عقلك غير الصورة ضيني هدانو سي إلهي الرميسين محوران لها إلهي هو لمحيبت كتريس هذا سوعي كان ما يندع ذي لأنه قفو إلهي سيدنا باو الرميسين مركا لنا بطا وشو كله فيلا وبطا وشو محي كتريسا نبي موسى وشي ببطا كله فتا إلهي وحولي فانفلق waaba kala dilaacay baa ilaah yidhi waa kala dhambalan quran maaha biyihii sidii laba buurood bay noqdeen biya miyaynu ku naqaanaa inay buur noqdaan biyo meel ay u socdaan helayaa inay istaagaan oo saa qaanuunka fisikiskai saa dhigi maayo biyihii buur bay noqdeen baa ilaah yidhi ka tawdi alcadiim waxaa kaa ka sii daran aayad kale ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa jidka loo bixiyey xataa inaanu ahayn jid dhooba leh haddii baddu kala jeexanta maxaad rajaynaysa meesha inay ka soo baxda maxay dhoobo ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya ariiqan yabasa waddo engegan baa loo bixiyey biyihii waa la kala jeexay wamaca daalik waddada soo baxdayna waddo dhoobo iyo dhiidhiya maahe waa maxay waa waddo engegan baa rabbi ku tilmaamaya subxaana wa tacaala dabeetana ilaahay wuxuu ina leeyahy waanjaynaa muusa waman macahu ajmaciin نبي موسى انتي لسعتي بوان بدبادي ثم اغرقنا الاخرين بإلهي كوي كلنا وانو هلاكنا